Waxaa soo baxaya wararka sheegaya in hawada laga saaray ama hawada lagu cunay baejajkii ay lahaayeen Daahir Calasow, Cali Aadan Muumin, Maxamed Yuusuf Bakayle, Tan Ayuub, Idris Altesto, Balwaan, Maxamed Cabdiweli Tooxow iyo sidoo kale wariyaal kale oo aad u tiro badan. Balse inkastoo inta ugu badan baejajkan lagu soo gudbin jiray wararka qabyaaladda iyo nacaybka, kuwaas oo ah kuwo lagu sii kala fogeynayo shacabka iyo dadka Soomaaliyeed oo ah dad walaalo ah. Haddana si kasta oo ay tahay, baejajkan waxaa ku jiray kuwo badan oo ka mid ah oo lagu soo gudbin jiray warar sax ah, kuwaas oo ahaa kuwo muhiim u ah bulshada iyo dadka Soomaaliyeed. Haddaba adigu baejkee ayaa isleedahay in hawada laga saaro may ahayn oo waa lagu qaldamay oo warar sax ah ayaa lagala socon jiray oo ummadda dan u ah, ama ahaa beej ummadda Soomaaliyeed ka dhexeeyay oo wax xaqiiq ah oo saxan loogu soo gudbinayay? Intaas oo dhan markii laga soo tago, waxa xaqiiqda ah oo jira haddii aynu u nimaano dhowrkii sano iyo dhowrkii bilood oo u dambeeyay, waxaynu ka warhaynaa in dowladdeena Soomaaliyeed ay ahayd mid sare u soo kacaysa oo yeelanaysa awooddeedii hore mid ka tiro badan, haddii ay ahaato dhan dhaqaale, mid ciidan iyo mid diblomaasiyadeed intaba, oo keentay in ay dowladdu yeelato dhalinyaro iyo dad shaqaale ah oo dowladda u shaqeeya, kuwaas oo xiriir la samayn kara applicationada ama shirkadaha iskale baejajkan ama meelaha laga samaysto ama halkan lagu soo gudbiyo waxyaalaha khaldan ee dadka Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed kala fogeynaya. Taas oo xilligan la jooga keentay in dowladda Soomaaliya ay awood u yeelato inay xirto beej walba oo lagu leeyahay Facebook, kaas oo wax khaldan lagu soo gudbiyo ama faafinayo wax xun oo ku saabsan dalkeena iyo dadkeena Soomaaliyeed. Sidoo kale inaynu arkayno dhowr beri ka hor aaladda ama applicationka TikTok inaynu arkayno dad badan oo laga xiray, kuwaas oo lagu eedeynayo in ay ku soo gudbin jireen halkaas waxyaalo cunsurinimo iyo qabyaaladnimo ah, kuwaas oo kala fogeynaya dadka. Dowladdeena Soomaaliyeed waxaynu ku bogaadinaynaa horumarka wacan ay ka gaartay in lasoo afjaro dadka dhaqan xumada iyo qabyaaladda iyo waxa xun ku faafinaya baraha bulshada ama magaca xun ka gudbinaya dalkeena. Adiga daawadaha, waxaan ku weydiinayaa, ama maxaad isleedahay, ama midkee ayuu noqon doonaa ayaad isleedahay applicationka xiga dhanka Facebook, maadaama dowladdu ay bilowday in ay la dagaalanto arrimaha qabyaaladda iyo dadka ka shaqeeya? Applicationka ku xiga Facebook ma wuxuu noqon doonaa TikTok, ma wuxuu noqon doonaa YouTube, ma wuxuu noqon doonaa Instagram ama Twitter? Adiga dhanka fikirkaaga ahaantaada nala soo qor midka ku habboon in lagu xoojiyo halkan ama dadkan ay ku leeyihiin baejaj ama meelo ay wax ku soo gudbiyaan.